Ethiopia ay gacmeeda ku imaatay. Do you believe in dastuurkaas uu qaldanaa iyo waxaan kula talnoo ku niri oo dhageysta shayga ugu horeeya ee dejinaysa uu noqdaa dastuur maaha walaal kitaab kitaabku waa waxa adiga iyo Ilaahay idinka dhaxeeyo laba jeer bad magacayga qaladeen magacayga waa Aasha Abtar Qaasim dawladda ma difaacayo waxaan difaacayaa dastuurka Ethiopia iyo kuwa hadda u saaxiibay Ethiopia qabiil dartiis weey kuwa diidan waxay u dhowdahay inkastoo ay ku gaban karaan hadda qowmiyanimo darteed ama diin darteed aniguna waxaan labadoodaba waxa ka sii xoog badan qabiilka problem soo ku jira macnaha waxaan u fahmay dadka reer Muqdisho ee deegaanka degan inay yihiin dadka problem ku jiraan waxa soo baxda marka kadib markii la ogaado warlooradii iyo problemada inay xamar yihiin dadku way iskilin gareeyeen dan marka waxa soo baxay haday iskilin gareeyeen haddana al-qaacida lagu level gareeyay dadka Soomaalida inay sanka ka tolaan sida iyagu diinta ay islaamka u wataan inay sanka ka tolaan qofkii aan ogolaana ay qoorta ka gooyaan oo ilaahay qofkani waxa weeye qof diin ay ilaahaan anu wadadaasna waxaan qabaa inay tahay wada xidhan oo khasaare keenaysa marka dadkii Soomaalida waxa la soo gudboon dhaqankoodii diintoodii aqoontii adduunyada ilbaxa ahayd saddexdaas sidii la isku dareeyay ee loo sameyn lahaa dastuur saddexdaa ku fadhiya iyo dadkii wadi lahaa ee kartideeda lahaa ayaa la gudboon dadka Soomaaliyeed doonaya intellectuals ka hadlana waanu dhignay hadda xafiiskayga waa kan weydin ku xiga 20 sanadood baanu ka qoran lahayn war wadada caynka iyo taa hal maro yaa ku dhageysanaya yaa ku dhageysanaya ku maqlay marka Barcelona waxaad u rurtay dibkii waad kala qaaday Soomaalida marka waxaad dibka Soomaalida xuduntiisu waa sawirka waa koonfurta Soomaalida marka isku mid ma aho waxaana isku mid ahayn dantii isku mid ahaato dantii ma kala tageyso oo maanta waqooyigu hadduu hagaagsan yahay oo koonfurtii ay naafaysan tahay de waa walaalaha iyo walaalaha shaayasho meesha daadsan dhibaatadooda iyo kadeedka ugu soo gaaray waqooyigu hadduu kala daadsan yahay baabaasan yahay saafka hagaagsan yahay sidaas si lagu weey waxaan saleeyahay waxa weey caddeyn waa in la kala saarsaaraay anuuse waxa arrintii iga gashay wadadkii Soomaaliyeed degmada koonfureed deganay Italian Somaliland iyo British Somaliland labada degmood bay noqday deganaa siyaasadoodii iyo kubadoodii tuwaalan bay noqotay meel allaaliya meel laga soo qabto waana laayay dadka iyaga waqooyiga ka yimid ee daafacaya qowmiyadda Soomaalidu inaanay kala go'ina doodii meel alla meel aanu la galno ayaanu laanahay waxaanu ku doodna ayaanu laanahay marka dadka Soomaaliyeed degmada koonfureed degan hal la weydiiyo taariikhda ay doonayaan inay sameeyaan iyo wadanka siday nabadgelyo loo keenay walaashay ayaa su'aal qaba waxay ka hadashay dastuur waxa la wixii la dejiyay anaga waxaan nahay wadan muslim 100% inkastoo wax badan ay soo baxayaan dastuur ayuu Ilaahay dejiyay quraanku ku dejiyay Nabi Maxamed sunnadiisa taala sallallahu alayhi wasallam dastuurkaas ayaa waxa laga sameeyay Southern Somalia ogtaa Muqdisho 6 bilood ayuu shaqeynayay Ethiopia ayaa gacmeeda ku imaatay. Do you believe in dastuurkaas uu qaldanaa iyo maamulkii nabadii 6 bilood waxa dhahay dastuur bay dawladda leedahay dastuur baa la sameeyay dawladda ka dastuur fiican oo kii rabbi raali uu ku ahaa anagana aan raali ku ahayn marka dastuurkaas Ilaahay soo dejiyay ma ahayn kii ummadda Soomaaliyeed ee madaniga ahaa ay soo raacday baan ka hadlayay marka waa xaqiiqo in 6 bilood ay joogeen wadaadada in meeshu ay nabad ka dhacday laakiin muddadu aad bay u gaabnay waanu ogeyn culimaa diinka markaasi kor dusha iyaga laftigooda qaybo badan ka ahaa iyaga laftigooda siyaasado badan iyo dana kala badan lahaan lahayd waxaan aaminsanahay waa run 6 bilood way fiicnay laakiin haddii la isu sii dayn lahaa wax kale oo khasaare ah oo hadda aan ka sheekayno inay ka soo bixi karto ayaa dhici karta maxaa dhacay haddeer iyada oo aan xukun weyn xamad ka jirin baa annagii dhexdeena diintii muslimka ayaa waxa la isku dilayaa haddii adiga aadan aaminsanayn sidan aan anigu aaminsanahay yaa gaal baa tahay waa kugu shiidaya hal comment baan rabaa inaan la wadaago iyo hal question oo qabo professor comment waxa weeye waxa u maleynaysaa inaan complain gareynayno adduunka annagu haddaan Soomaaliya nahay problemku waa annaga weey wala badan baa arkay Ethiopia ku cararaysa Mareykanka caadisa dhan walba interestkiisu kaalay haddaan u masaamaxno oo annagu aan u yarno imaanay
waxaan aaminsanahay Ethiopia inaan anagu invite garaynay oo ay invite gareeyeen wiilashii xamar ka soo baxay wadaadada ahaa oo inta qoriya qaatiir oo ku duulayna Ethiopia waxaan aaminsanahay in maaragtay Mareykanku inuu duqeeyo gobolada waddan ka mid ah anagu ka mas'uulnahay oo inta istaagno qoriya yar qaadanay nimankan mas'alaska haysta aan u yeeranay marka waxa weeye blameku ma ahan Soomaalida ma ahan Mareykanka iyo Ruushka iyo Ethiopia-ka ma ahan blameku Soomaalida weeye and I think inay fiicnaan lahayd in isaga laga hadlo question-ka qaba waxa weeye professor waa mahadsantahay inaad nagala soo qayb gashid ardaydaadii baan nahay dhalinyaradii soo korisay Mr. Prime Minister waa ku mahadsantahay waddanka u soo shaqaysay caasho waa mahadsantahay Mr. Professor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo always waxa qortaa peace baa Soomaaliya ka qortaa waa xasuustaa maalintii TFG-da October 10 peace baa qortay 100% adiga iyo Professor Abdi Samatar waxay ka soo horjeedeen processkii iyo TFG ba ka soo horjeedeen maalintii maxkamaduhu dhaceen ay xamar la wareegeen peace baa qortay aad ku gaadgareynaysid oo leedahay saan sameey personal waxa arkaa inay fair ahayn because haddii TFG aad gaadgareyn lahayd maybe ina shaqeyn lahayd sidaas maxkamada horta su-aasha hore hordhaca su-aasha ee ahayd nimankii wadaadadii Islamic courtskii ayaa dowladda Ethiopia casuumay in ay soo galaan Ethiopia ay ku soo duulaan Ethiopia ku soo duusho Soomaaliya anu waxaan qabaa hadalkaasi inaan hadal sax ahayn Islamic courtska qaarkood inay ku hadleen hadalla aan laa'iq ahayn oo daandaansi leh oo khafiifa inay ku hadleen shaki kuma jiro waa la hayaa taariikhdeedii laakiin inay dowladda Ethiopia ayagu casuumeen oo ku duuleen anigu ma hayo markhaatigeygii taa ma hayo sababtoo waxa laga yaabaa dad aqoon badan inay jiraan oo markhaatigeygii hayo laakiin anu taa markhaatigeygii ma hayo Islamic courtsku intaanay ka dhalan Muqdisho dowladda Ethiopia diyaar bay oo ahayd oo ka shaqeynaysay inay samaysato dowlad iyadu ay gacanta ku hayso oo waddanka Soomaaliya ka fadhiiso waa intaanay Islamic courtsku citaanay soo bixin soo degarmaysa taas horta waa koob talabaad su-aasha ahayd qoraalkii maalintii la doodo ay ka socotay Nairobi intaanay dowladdan soo bixin TFG-du aanay soo bixin Abdullahi Yusuf dowladdiisu intaanay soo bixin intaanu isagu madaxweyne noqon Abdulrazaq waa kan uu fadhiyaa markaati uu keenay dood baanu ku yeelanay Nairobi dad mutacalimiina la isku keenay dad madax ahaan jiray oo karti leh oo waaweyn ayaa la keenay shir baanu ku lahayn Nairobi ya annagu aanu kharashka iska bixinay oo aan cid kale ku tirsanayn soo degarmaysa waanu ka doodnay arrimahan hadda wali waxa socota doodii yaa madax noqonaya iyo yaa soo bixi doona wali socota ogow waanu darisnay arrintii 20 sanadood waxaanu darsanay baanu soo shiilnay meeshii baanu keenay waanu qornay qofkii madaxa ee ka soo baxaya meeshaas qofku doona ha noqdo amba Abdullahi Yusuf ha noqdo amba qof kale ha noqdo sidaa ayaanu ku talinaa ayaanu sidaa halaya ilaa xitaa aanu soo gaarsiino haddii dowladda dhisayo distoora ku socdo dowladda la dhisaya waa inaanay 12 wasiir ka badan dowladda ku meel gaarkii 12 wasiir waa inay ka badan marka waanu hor dhignay taladaas markii uu soo baxay Abdullahi Yusuf ee dowladdiisii la dhisay mar labaad baanu shir kale ku yeelanay Nairobi waanu haddana dib isku eegnay waanu qornay risaalada hal gaarsiiyay waanu baydhaba hal gaarsiiyay intay goorta saad garmis marka wixii tala waanu gaarsiinay anagu dowladda ku meel gaar sadamaad garan laakiin waxaan jecelahay in aan anigu horta shirkana horena waan uga sheegay imikana ka sheego dadkii Soomaalida ahaa ee Islamic courtska ahaa ee xamar ka soo baxay wax lagu neefsado oo keeni kara guul cusub oo nabadgelyo ay ugu horeysay intay gacanta saareen adduunyada dhanba taa ka maanta ka markhaatiya soo hadda garmaysa laakiin iyagana dhibaatadoodii waxay noqotay karti dowlad lagu sameeyo war portkii Muqdisho furdadii Muqdisho afkoogay ka nagaga yidhaaheen ya war boortkii Muqdisho cid maamuli karto kartile ma hayne ma taqaanaan yani intaasay xitaa kartooda gaari weyn marka waxaan u jeedaa waxa weeye ha keenaan wax lagu neefsado oo keeni kara mustaqbal cusub laakiin kartidii ka dambeysay
ee dawlad lagu dhisayay ummad lagu ururinayay ee distoor cusub lagu dhisayay taa may keenin marka waa iyaguna waa kuwa badda ku dhacay anigu Puntland gobolka Puntland ma dadka madaxda u ah mise dadka Soomaaliyeed degmada Puntland qorniinkayguna wuu dhigatan qofkii doonayo dad marxato library-gaas aad gali waad arki doontaa dadka Puntland inay ku dadaaleen iyaguna inay sameystaan distoor awalkiiba inay sameystaan distoor ay ku dhaqmaan oo ku meel gaara oo noloshooda ay ku hagaajistaan oo dabka shidmaya kala ay iska ilaaliyaan marxatigeygii waa loo joogaa Cabdirasaaqna waa kan annaguna waa ka qornay soo hadda ma garan Puntland wali waxa kale ku sii salaamaya anigu inay yihiin dad diiday inay sameystaan gobol ka go'a ummadda kale halkay kaga hagaagsan yihiin Somaliland waxa weey iyo waxay diideen gobolkaas uu noqdo dawlad kale oo ka go'da waddanka intiisa kale taana in lagu salaamo weey laakiin anu waxaan qabaa Puntland inay qayb ku leedahay burburka iyo gariirka ka dhacaya xamay maxaa sabab hal isweydiyo dadka halka fadhiya hal isweydiyo